It's a high-profile case that took the nation by storm. Alexi Trevizo is a now 20-year-old woman. maxaad samayn lahayd haddii aad maqasho hooyo da'yar oo ilmaheedii ugu horreeyay ku riday qashinka kadibna tirtirtay dhammaan cadeymaha si aan loo ogaan? waa mid ka mid ah kiisaskii ugu naxdinta badnaa ee la diiwaan geliyay 2023. maxaad u malaynaysaa Alex Madambila mise cadaalad darro ayay maxkamaddu ku haysataa? kiiskan waxaan uga hadlaynaa muuqaalkan bilow ilaa dhammaad nala joog si aad u fahanto kiiskan naxdinta badan. waa tuma Alex waa gabadh 19 jir ah kuna dhalatay kuna kortay magaalada New Mexico ee dalka Mareykanka. waxa ay ahayd ardayad dhigatay dugsiga sare, mana jirin wax calaamad ah oo muujinaysa inay ku jirto dhibaato. waxa ay la noolayd waalidkeed, gaar ahaan hooyadeed Rosa. dadka yaqaanay waxa ay sheegeen inayn ahayn qof dhib badnayn, balse waxba lagama garan karo nolosheeda khaaska ah. balse waxa la rumaysan yahay hooyadeedna ay sheegtay in muddo ay qarsanaysay uurka. xitaa hooyadeed ma aysan ogaan in gabadheedu ay leedahay uur, balse markii ugu horreeyay waxaa la ogaaday uurkeeda January 27, 2023. xilligaas oo ay aaday cisbitaalka ayadoo ka cabanaysa dhabar xanuun. markii ay dhakhaatiirtu si lama filaan ah u ogaadeen in ay foolanayso, balse saacadu markii ay ahayd 1:38 ee habeenimo ayay aadeen musqusha. maxaa dhacay? dhakhtaradda ayaa ka daba timi saacadu markii ay ahayd 1:53 ee habeenimo. Alex musqusha ayay ku dhashay, waxaana la arkay ayadoo dhiig ka nadiifinaysa musqusha. dhakhtaradii waa ay la socotay inay fool ay hayso. si lama filaan ah mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa arkay bac lagu riday qashin. markii la furay waxaa ka soo baxay ilmo meyd ah. Alex markii la weydiiyay waxa dhacay, waxa ay sheegtay in ilmaha uu dhashay asagoo meyd ah, balse xaqiiqada midaas waa ay ka duwan tahay oo waxaa la ogaaday markii baaritaanka la sameeyay wax kale. baaritaanka markii la sameeyay ayuu muujiyay in ilmaha markii uu dhashay uu noolaa, waxaana la ogaaday in dhimashada ay u sababtay ceejin la ceejiyay. kadib maxay taas ka dhigan tahay? Alex ilmaheedii makas ayay u dishay, mise xaaladdu waxa ay ahayd mid si kale loo fasiran karo? kadib markii la helay caddeemo, boolisku waxa ay xireen Alex bishii May 2023, waxaana ay ku soo eedeeyeen dacwad ay ka mid yihiin qarin iyo burburin cadeymo iyo dil. maxkamaddu waxa ay dhageysatay dooda qareenkeeda u doodaya Alex, waxaana uu maxkamadda uu ka horsheegay in dhakhaatiirta cusbitaalka ay mas'uuliyad ay ka yihiin dhimashada ilmaha. laakiin arrinta xiisaha dhalisay ayaa ahayd maxkamadda New Mexico waxa ay diiday in muuqaal laga duubo Alex, taas oo keentay su'aalo fara badan. Alex Madambila mise cadaalad darro ayaa lagu haystaa? kiiskan Alex weli ma uusan gaarin xukun kama dambays ah. maxkamadeeda oo markii ugu horeysay loo qorsheeyay in ay bilaabato 26 Agoosto 2024 ayaa dib loo dhigay kadib markii garsooruhu diiday in ay cadeymo muhiim ah ay ku jiraan hadallada. Alex ayaa sheegtay cisbitaalka iyo muuqaalada laga duubay oo lagu soo bandhigay maxkamadda. tani waxa ay dhalisay muran sharci darro ah sababtoo ah oo ku saabsan isticmaalka cadeymahaas, waxaana dacwad oogayaasha ay raxfaan uga gudbiyeen maxkamadda sare ee New Mexico si ay u bedelaan go'aankaas. ilaa iyo hadda taariikh cusub oo maxkamadeyn ah lama shaacin, waxaana la sugayaa go'aanka maxkamadda sare. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka, noo saar subscribe.